بريايا ووطن وقلكاتايا ووطن وقابريايا ووطن وقلكاتايا ووطن وحفظ الكرايا ووطني مرشح اللبان قول برلمان محمد فارح عبد علامة اللوغو عدنيا اي تاي فرس ايا سفر ساعة بدن قاتي وحيا مانتا وحا وكوكا لقالا بحيي ديغانا بورليدا قبل كاودل وجيد كسعودال كمرشح اللبان قول برلمان محمد فارح عبد ايا دارنا سيد اللوغو عيقلين لها علامة مانتا دورشادا يحريقي دونان اسكونا ديارين لهايين كوبي صدق بيشمي مانتا عدينتا دورشادا سعودال كساعة كدي مرشح اللبان قول برلمان محمد فارح عبد ايا قاري دقمدا الرقو وسودوين بلارن لوغو سميي bulshada deegaankaasi ayaana laga dheehanayay rabitaankooda ku aadan murashax xildhibaan golaha baarlamaan maxamed faarax cabdi inta kadib hambalyo murashax xildhibaan golaha baarlamaan maxamed faarax cabdi oo dhankiisa halkaasi kala hadlay bulshada kala duwan ee deegaanka ruqi ayaa u jeediyay khudbad xambaarsaneed hogga tusaaleyn mustaqbaleed ana aad iyo aad ugu faraxsanahay oo maanta dareensanahay inaan bulsho haysto inaan dhalinyar haysto inaan haween haysto inaan dad hiil la haysto in dad hiigsilaan haysto in dad magac la haysto dad inaan haysto dad ujeedda leh ayaa maanta iga muuqata reer ruqi waxa runtii waxaan filayaa nolosha malaha laba jeer hore aan filayaa anagu mar olole kala soconna markaas aan isku weynaan aqoonin laakiin maanta ujeedda gaar ah baan u socdaa waxa runtii ayaan daraa saaka boorman ka soo baxnay ruqi waan aragnaa deegaanka ku fadhido ruqi waan aragnaa bulshada ay leedahay ruqi waan aragnaa wax soo saarka ay leedahay waxana sii daraa waxbay soo saartaa ummadda inta halag ba ku nool inaanay lahayn waddo ay meel magaalo ay u marto waxa runtii wax laga xumaadaa waxa runtii aad uga xumahay dhaqaalaha waddanka yaalla dhaqaalaha gobolka udal yaalla iyo sida ruqi ay tahay iyo bakiba ay tahay waa wax laga xumaado foolxumaa runtii waxaan u baahannahay inaynu taa ka baxno waxaanu kaga bixi karnaa oo keliyaata inaan helno qof dareen leh qof reer ruqi garanaya reer ruqi waxay soo saaraan garanaya waxay u uuman yihiin garanaya halkay dalka kaga yaalaan garanaya in ay doortaan si ay ugu baadi doono baahida taalla degmada ruqi nusqaan bay nugu tahay oo ceeb bay nugu tahay inaan umusha ruqi waxaasoo rafa sii marto ceeb bay nugu tahay idinkoo meesha intaa leeg degan oo beeraha intaa leeg leh inaad mar labaad ku noqotaan inaad qabyaalad iyo waxaan macnay noo samayn doonin in dadka lagu xulxuuto mar labaad kuwii horeen oogeen waxayna tareen kuwii shimika joogaan oogeen waxayna tareen waxa nasiib daraa oon u baahanay oo arrinkan aan kaga gudbi karnaa keliyaata inaan qabyaaladda ka baxno qabyaaladdu nima macnaha leeda waan garanaynaa waxaynu kaga gudbi karnaa inaan iskaashanno inaanu idhaahno qofkaasi muxuu ku tari karaa macnaha marka le muxuu ku tari karaa waxa weeye maxamed faarax intuu halkan lacag keena ma bixinayo laakiin sistamka waddanku ku wada nool yahay halka wax laga soo doroso halka wax laga soo qiimeeyo halka dhaqaalaha dalka lagu qaybsado ayaan u soconnaa inaynu tagno inaan ruqi xasuusnaano weeyi inaanu idhaahno degmada maxaa ugu jira weeyi inaanu gobolka maxaa ugu jira idhaahno weeyi taas ayaa wax lagu soo saari karaaye hadduu ninkii lahaa ka seexday cid ku xasuusanaysaa ma jirto waxaynu u baahannahay ruqi cid xasuusatay u baahan tahaye cid reernimo ku sheegata uma baahna cid xasuusatay u baahantahay laakiin ruqi reernimo uma baahna maanta sidaas islamada waxa wafdiga murashax xildhibaan golaha baarlamaan maxamed faarax cabdi oo hogaaminaya u jaahisteen deegaanka Kaxda oo dhankooda soo dhaweyn u taagnaa saacado badan waxgaradka kala duwan ee deegaanka Kaxda oo dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in gacmo furan ay ku soo dhaweynayaan murashax xildhibaan golaha baarlamaan maxamed faarax cabdi iyagoona u rajeeyay guul maalinta doorashada 13 bisha May محمد فارح عبدي واحد دبان هذاك واحد دبان مسرحان وحكى شرعية قولها وكيلة حزبك وطني وحكيها الرماء قديه وطني إلهي هاي نوغة طعم يلو بلنتين هو وطني يوم محمد فارح عبدي صومها الله ينصرتكم وروح ذا صوتان لوالدك قدوني سعود فين لوالدك قدوني حلبان كان لوالدك قدوني وانو قادرني
ducana waanu ku qaadanay waanu ducaynayna ilaahay inuu soo saaro bariyana ilaahay baanu bariyana inuu soo saaro oo la daba guuro oo la daba socdo oo cid walba uu taliyo yaan ilaahay bariyana maxamed faarax cabdi waxaan ku soo dhaweynaynaa salaan gacmo furan 10 cisho ee ka hadhay doorashada adiga ayaan ku taaganahay gacan furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa cod iyo cududba adigaan kugu soo dhaweynaynaa si aad adiguna 5 sano dambe aad noogu shaqayso allahumma salli ala codkeenu waa maxamed cabdi faarax codkeenu socodkiina waxaan sacyi mashkuura وسعي مشكورة واد ما تدي سود وهذا هذه جعل إنه نسلف عنه وشدة يمشي الله صعده وحويان مالك كلي إنه تاجنا أنا ده قلت قديش أسكت دجنا مالك هاسنا ومالك إنه دورنا محمد فارع عبدي maxaa yiraahdaa 5 sano inoo shaqeyn doona maalintaas waxay goynaysaa 5 sano inaynu geeyno meeshaas hadii ilaahay yiraahdo waxana aad iyo aad ugu rajo weynahay inaynu maxaa yiraahdaa taasi aynu aad uga wada dheregsanahay sababtoo ah bilaadanku haduunu damqanin baahida hadda taala wada la'aantaas xarumo caafimaad ma jiraan waxa soo biyo la'aan baa jirta waxaan u baahanahay dawladnimadiiba ma aragnaba meel baynu kaga xidhannahay murashax xildhibaan golaha baarlamaan maxamed faarax cabdi isagoo ka duulaya dareenka bulshada Kaxda ayaa waxa halkaas uu ka soo jeediyay hadal dhinacyo badan taabanaya isagoo bulshada kala duwan ee Kaxda u ballan qaaday intii karaankiisa inuu wax ka qaban doono baahiyaha kala duwan ee ka muuqda deegaankaasi ismalihi idinku ma imanin inaan maanta idinka danaysto nin dhalinyaro baan ahay aragti siyaasadeed baan lahay fishan dambaan leeyahay tu mustaqbal fog baan leeyahay uma socdo inay maanta intan dantayda qaatayna idinka noqdo dib idinku soo noqon waayo dhici ma taasi xaasha waxaan samayn doonaa waa halkii horeysay wax rasmi ka ballan qaaday waxaan samayn doonaa hadii ilaahay meesha ay geeyo inaan ku soo noqon doono halkan inaan qiimeyn doono baahidu noocay tahay inaan samayn doono waxaan la shir tago inaan iman doono aniga oo doonaya siday baahiyihiin u kala mudan yihiin inaan ogaado inaan idila fadhiisto inaan sheekaysano inaan wax badan isweydiin doono kadibna aan la noqon doono hay'ad la kaashadaya dawladda joogta la kaashadaya cashuurta la idinka qaaday beerihiin iyo dadkiina lacagta la qaado ka doonaya inaan dib ugu noqon doono oo aan keeni doono waxaad igu xasuusataan oo aydaan odhanin intuu noo yimid buu naga noqon ilaahay waxaan ka barayaa inuu asturo ilaahay waxaan ka barayaa waxa la iga sugaya la iga tamaniyay ilaahay iga keeno in ilaahay aan igu khashfin idinka waxaan idinka doonayaa inaad aragti yeelataan inaad qorshe yeelataan inaad dadka kala garataan inaad kala doorataan kuwii shalay idinla joogay iyo kuwa iyaga maanta socda waxaad ku qiimeysaan inuu jiro ninka shalay idinla joogay ee waxa idin sheegayay ninka shalay idinla joogay waxa idin sheegay maantana dirir idinkula soo noqonaya waa idinku nusqaan qalbigii nuucaaya garashadii nuucaaya aqoontii nuucaaya kartidii nuucaaya deegaankii nuucaaya waxba ma tihidin buu leeyahay waa inaad wax noqotaan oo tidaada waxbaan nahayo mar baad aarsanaysaan fursadda maanta adeysaan waa inaad gacantiina ku codeysaan waxaad u codeysaan inuu noqdo ciidaas leedii waxbaa idinka soo gelaya waxaan arkayay carruur yaroo dayacan oo wallahi aan qiirooday markaan imika dhulka soo mariyay waxaan arkayaa hooyada ama inanta ilmaha xambaarsan ee luunku ku wareegay ee dhagaxasi uga baxayso ee dameer wadata ee ilaahay uu og yahay xaalkeeda inuu maanta nina cashuurtiidii wixii intuu ku dul cuno hadana uu la yimaado canaan iyo hadal ceeb rutiin ugu tahay oo wax laga qiiroodo weeyaan meeshan aragno anagoo xoogaas oo Langursalo wadana ayaa maanta oo soo soconay gabadha halka ku foolataa dhibaatada qabsanaysa waan ognahay inay gaari la'aan tahay waan ognahay inay cid meel loo soo maraynaanay jiribaan maanta arkeenaa waxaan u baahanahay inaan isgarabsano si aan uga baxno dhibaatooyinka faraha badan ee haysta inaan isgarabsano u baahanahay inay garashadu inay shaqaysaabaan u baahanahay garashadu inaanu qabiilkuna shaqayn baan u baahanahay inayna shaqayso yaa maanta daniidu ku jirta yaa waxa idin la qaban kara waar waxaan idinka baahanay in dhalinyarada maanta wax idin la qabataan inaan bari waxa idin la qabto inaan bari waxa idin la qabto inaan idinkala shaqeeyo baahidiina rasmiga intii ilaahay karaankii intii ilaahay garasiiyo ayaan insha Allah bismillaahi kariim rajeynaya inaad idinku maanta ii hiilisaan
aniguna ana noqonin codkiina ku khasaaro ku damaashaade aan noqdo in dib idinku soo celiyo tacabkeed geysateen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa sharaf weyn bay runtii tahay mar labaad inaan deegaanka soo booqdo waxaan idinka soconnaa waa cod inaad noo hilisaan baan doonaynaa habluhu inay noo hiliyaan baan doonaynaa inaad beritoole ku soo noqonnaa baan doonaynaa waxaan idinka mahad celinayaa cadaadda taagnaydeen waad mahadsantihiin waxaa xusuud mudan intii deegaanada buuraleyda bariga gobolka awdal la marayay kaadiriinta la socday murashax xildhibaan golo baarlamaan maxamed faarax cabdi ayaa bulshada u sharxaysay calaamada lagu codeynaya maalinta doorashada iyagoona ka dhaadhicinayay sawirka murashax xildhibaan golo baarlamaan maxamed faarax cabdi oo calaamadiisu ay tahay faras si kastaba haatee safarkii dheer ee saaka ka bilaabmay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal isla markaana wafdiga uu hogaaminaya murashax xildhibaan golo baarlamaan maxamed faarax cabdi ay ku marayeen deegaanada buuraleyda gobolka awdal ee bariga gobolka ayaa ugu dambeyntii waxa uu soo gabagabooday 6dii maqribnimo ee caawa waa Cimraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Real TV Boorama